الله الرحمن الرحيم. ملعب صدحوا على عبد الحافظ السيري عمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركب ورئيسة وحن أبو سلام يا ورقة 24 علي الله صح لي وحن دوري إن عن كهالله نمكي شري ميديا عن كذي سني بيجي كسوتشي ذا قبل كعين قران دقبل بوله waxaan rabaa inaan caddeeyo habka wuxuu jiraan oo dhan dadkana aan u turgumayo aad iyo aad uga soo horjeedaa waana diidanaya fakarkooda waxaan ku wareejinayaa warbaahinta wargal aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin cabdi xaafid aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaa jira cabdi xaafid warar sheegaya iyaguna sida ay sheegeen nimanka shirka jaraa'id ku qabtay magaalada Buuhoole in shirkii lagu dhisay maamulka Khaatumo 3 ee ka fashilmay magaalada Taleex in loo soo wareejinayo magaalada Buuhoole maxaa aad kala socotaa adigu arinta actually horta marka ugu horeysa waxaan cadeynayaa oo dhab ah ilmada iska hadlayay lama jira habaabiyay beenta loo sheegay loo dhigay kelmado aan qiimo gal ahayn Buuhoole ilaa Farhareeri إلا قرره إلا هيجاري إلا يحررنك كلشارة إلا يميجاجله إلا قردو وحان بشرة أو أنو شيء سوينا ضد أنو دفاع كوريشلو مركا نمو قطو إيمان نمو قطو شغل سوريشني يا مجال يا بول قبل كعين دفاع ويكشلان ومد بيارها شيء إلا قطو شكل لبتي سنة أنا أوتوماتيكلاً actually والكسور شيء مركز خد عيبة وهايو واحد شرطي تلاح بباطني كده عليه وأنا أغناي كثير خدوم بأنا أغناي كثير أسعار بأنا أغناي ولك كمان جنب بكسون شركة ذاتك وطا وحويا واسكودر وكلك حين واسكودفش بو أنا شركة عيا مكسلو أنا وحن كنت نتيجة ولا البحان تاناي البحان الرامسية وامسيناي وقصلاوي maanta waxa jira war saxaafadeed ka soo baxay maamulka Somaliland oo lagu sheegay inay wada hadal diyaar u yihiin ku saabsan gobolada SSC iyagoo horena war saxaafadeed ka soo baxay magaalada Hargeysa lagu sheegay inay naf iyo maalba u hurayaan wax kasta oo kaga hor yimaada gobolada bari oo sida hadalka u dhigeen maxay kula tahay ba isbedelay arinta hadii aan wax weydiin actually hadii aan soo qaato international community America iyo Ingiriiska iyo midowga Yurub way ka hadleen arrintan iyaga laftooduna way ogyihiin waxa ka soo horeeya marka waxaan u maleynayaa inay iska tahay daalabacayn oo marba meel isku qaadayaan maanta dagaal baanu qaadanaa waanu ka noqonnay marka iyaga u taala arrintaasi annagu waxaanu ku jirnaa difaac baanu ku jirnaa waxaanu ku jirnaa ilaalin waxaanu ku jirnaa sharafteeda iyo karaamadayada iyo magacayaga iyo qabiilnimadayada haddii iyagu gaalada maqlayaan annagu waxaanu maqlanaa sanqadha xabaddu waxa ay keentaa waa dhimasho haddii wanaag qaateen waa naflacaari weeyaan waa ka baxay waan gartay wasiiro iyo xildhibaano ka soo jeeda gobolada SSC ee maamulka Puntland ayaa tagay maanta jiida hore ee magaalada Tukaraq waxayna sheegeen in ay iclaamiyeen dagaal aan maamul iyo shacab toona loo kala hadhin laguna difaacayo dadka iyo ummadda iyo deegaanka SSC ma la oran karaa arintaas lafteedu cilaaqaad bay la leedahay saxaafadeed ka soo baxay magaalada Hargeysa actually waxa weeyaan aad baan waan dhageystay aad baan ugu mahadcelinayaa wasiirada Puntland uu hogaaminayay Axmed Cilmi Cusmaan Tukaraq inay yimaadeen waa la socdaa actually waxa weeyaan adayru yaduru maca shagli shimbibashi soo doona Puntland waxay la duulaysaa oo ay ka qaybgalaysaa Soomaaliya waxay duulaysaa warkad joog wardeegaan bay leenahay warweynu sudhamay way diideen waa la iskala bixiyey wasiirka Axmed Cilmi Cusmaan arrinta uu ku dhawaaqay ee Tukaraq iyo xildhibaanada
iyo maamulka oo dhanna waan raacsanahay dad iyo dunyo waanu kacana hadda ka hor waaba ka hadlay waxaa layidhi dibadjoogta nimanka ee diganta ruugaya waa inuu dareenka inuu yahay daacad iyo aamin waa inaad doolka la dirtaan ama sadiinaarka waa inaad dagaalkana gashaan doolka maanta qurba joogta iyo kuwa gudaha jooga xoolaha iibiya kuwa banaanka joogow qurbaha jooga ama yurub ama maraykan baabuurta iyo naftaba waa la hurayaa waa iibinaynaa dagaalkana waa gelaynaa bilmacna kelimad saas weeyaan cabdi xaafid ma jirto miyaa wax kale oo tijaabo ah oo lagu dayi karaa iyadoo aan dagaal dhicin ma suurtagal ma tahay in la yidhaahdo maamulka somalilan dhulka kan SSC iskaga baxa haddiise ay arrintaas suurtagal tahay sida ay maanta sheegeenna ay wada hadalka diyaar u yihiin muxuu yahay waxa kaliya ee lagula hadli karaa iyadoo aan dagaal dhicin waxa kaliya lagula hadli karaa waxa weeyaan dagaalka anugu ma iclaaminayo waxa kaliya lagu hadli karaa waxa weeyaan deegaan baynu leenahay qof kastow qabiil kastow deegaanka ay ku eko xudun ka baxa laascaanood ka baxa talaax ka baxa deegaankii dib ugu noqda guurti iyo caaqil iyo odayaal iyo dhaqankii min diidadmeeyey laakiin waxaan leeyahay haddii ay wax taabiyeen ama ay wax ismoodeen wax la midaa la tusayaa laakiin waxaan leeyahay dagaalka waxaan ku joojin karnaa oo keliya anoona iclaaminaya inay ku noqdaan deegaankoodii markay ku noqdaan deegaankoodii saasaan umalaynaya anugu waan gartay waxaa jiray cabdixaafid xiiray camey waxaa jiray maamul loogu magac daray khaatumo oo la dhisay 2012 muddo 3 sano ah kadib bulshada in badan oo ka midii waxay taageersan yihiin magaca maamulka khaatumo maxaa faa'iido oo laga dhaxlay 3 sano maamulkaas oo uu ku soo kordhiyay deegaanka SSC actually waa arrin aad wanaagsan horta magaca dhulbaante waa gef iyo goolaabtan ceeba oo magacana laku bixiyey khaatumo annagu khaatumo wax layihahdo ma aaminsanin annaga waxaa layidhahdaa dhulbahante sooliya sanaag iyo cayn waxa ay qabteenna waxa weeyaan taleex baa laysku diray dadkii deganaa soo jireenka ahaa magaca lahaa nabadda wada jiray dadka u hoggaansanaan jiray dhulbahante isku wada jiray waa la isku diray xudun baa la isku diray laascaanood baa cadow gacanta loo geliyey waxaa buuhooda ayaa la teerigareeyey in badan bilmacna kelima waxa weeyaan khaatumo waxa la yidhahdo anugu cabdixaafid xiis ahaan ma aaminsanin waa magac meel ka dhaca waa magacaan aanaan geyin waxaana la yidhahdaa dhulbahante okay marka anigu waxaan odhan lahaa waxaan ila tahay in magacan khaatumo dadka wata ee hogaaminaya inay ka leeyihiin dana gaara oo ay ku doonayaan NGO-yo oo ay ku doonayaan inay dhulbahante isku dilaan dhulbahante waxaad isku dili karteen waad isku disheen wax kalena ma yeelno in badan dhagaaga waxaa ku dhacsay suxufi waxaa ku dhacayay nabadgelyaanu doonayna dhibaatada naga daaya khaatumay hadayniya ilcab burhaantiina keena waa la isbaranayaa dib dambe loo dulqaadan maayo oo dib dambe cid loo baryi maayo oo dib dambe caaqil ma hadlayo waxa weeyaan automatic kaleeto ila keena waxa aad doonaysaan waan wax badan baan ka gabangaabayay wax badan baan iska ilaalinay wax badan baanu lahayn dhulbahantiisa isku dhicin khaatumo isku dhufatay oo isku dirtay oo kala kaxaysay mar dambaba ma dhacso dhagahayguna ma maqlayaan waxaan leenahay ilcab burhaane waan gartay cabdi xaafid waxaa jirta taariikhda marka dib loo eego maamulka Somaliland taariikhdiisu waxay ka soo bilaabatay 1988 waa sida ay iyagu iskuulada ku dhigaaneen magaca kan marka la eego khaatumo ma la oran karaa magacii daraawiish ee ay lahaayeen deegaanada SSC ee muddo ka badan 1 qarni iyo dheeraad 2 qarni ku dhow soo jireenka ahaa ayaa la doonayaa in lagu masaxo oo laga bilaabo 2012 sidee baad iyada arrinta warartay inaad arkaan oo ku raacsanay bilmacna kelime waxyaalaha aan waan ka xanaaqo waxaa ka mid ah magacaas oo dhan magacani waa dhaxal wareejin magacani waa
magaca cusub oo rabo in loo bixiyo 300-400 sanadood baan dhulbaanta ahayn aanu daraawiish ahayn protocol lagaga dhintay maantana in magacan khaatumo la yiraahdo deegaankayga loo bixiyo niman siyaasiyiina oo doonaya arrin gaar ahaaneed ayaa magacan bixiyey mana raacsanin ma ogolin mana yeelano cid allaaliya ciddii isticmaasha magacan khaatumana waxaa naga dhexeeya difaac iyo dagaal waxaan leenahay katasula waxaan leenahay nimanka wato adeer waxaad ka timaadeen maraykanka kusoo noqda kalshaale iyo ilaa ceerigaabo ilaa iyo xudud ilaa iyo taleex ilaa iyo boocame dadka degan waa dhulbahante mana yeelano mana qaadano waxaas isla su-aasha mid lamida oo haddaan kusii weydiiyo isla iyadii ah magaca ka qaatumo ma la odhan karaaba Somaliland lafteeda ayaa ka dambaysa inuu shaqeeyo si loo ay taariikhdii 88 ka soo bilaabatay in ay ka dambeeyaan goboladan SSC taariikh iyaduna ka dambaysa laga dhigo oo 2012 ka bilaabatay aabanku asarhay ninkan ila galay professorka ayaa Somaliland xiriir la leh isaga waxaan gaaray isaga la xiriiray nimankaas magacana inuu bedelo dadkana baabiyo isku diro kala leexan maayo runta u sheegay ila galay waxaan leenahay magacayga ma baabiin karti khaatumana ma qaadano Somaliland waxa ay ku soo dhigtay ma yeelano shalay buu inta tagtay waxa tiri waxa la xiriiraya SNN ama Somaliland adeer waan ognahay inaad iga gurtaa rabtaa igana geysaaye anigoo ku garanaya yaan ku gadbaxayaa maanta mid qaadka ku guysa iyo guraan ku dhiyo agoon baa tiriyey marka waxa weeyaan waa arrin xiriira arrinta xiriirkaada ma yeelano mana doonano inta badan waxa la sheegaa siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanadu waxay sheegaan Cabdixaafid dadka qurba joogta ah inay inta badan door ka qaataan arrimaha dalka gudihiisa ka dhaca ama dhaqaalaha ku bixiyeen ama arrimaha iyagu tala badan ha ka geysteen maxuu yahay doorka qurba joogta gobolada SSC ee kaga aadan arrimaha kan hadda socda dadkan u dhashay magaca Soomaaliya sanagacay ama daraawiish looreejay ama dhulbahanta la yiraahdo wadad aad u wanaagsan inta aan hayo waqtiga aan la socdo 2,500,000 oo kuma laga qaatay khaatuma la yiraahdo baan nahay marka dadka maanta way baraarugeen waxay arkeen tii taleex baan weyn tii xudun baan weyn tii laascaanood baan weyn magacyada la bixinayaan weyn marka waxaan anugu ku talin lahaa ugu horeyn marka ugu horeysa dhalinyarada dhulbahante ee beenta loo sheegay ee waxaan jirin loo sheegay ee lacagaha loo dildirayo ee miidiyaha ka soo hadla ee jagan misiyana wax ka jira ma jiraan su'aal kale haddaan ku weydiiyo Cabdixaafid waxaad ku sugan tahay dalka Maraykanka waxaa jirta koox yar baa jirta oo wada magacan khaatumo sheegaysana marar walba inay qabanayaan shir lagu dhisayo khaatuma tiri waa dad yar oo fara ku tirisa shacabka intiisa badan 90% kuma taageersana arrintan ama beelaha marka la yiraahdo dhulbaante laftoodu intooda badan kuma raacsana arrinkan waxaan afarta shakhsi u muuqdo oo beelweynta dhan u muuqan waayay muxuu yahay waxaan u maleynayaa inaad ergacaliye waa arrin guraca iyo gurbada kaleeyada waa arrin guraca waa arrin ay niman wataan 5 nina dhulbahante waa 150 160 baa lagu tilmaamaa majority-ga saad u sheegtay 90% waxaan ma ogola laakiin waxa weeyaan nimanka doonaya inay marxabaabiyaan oo gooni u kaxeeyaan oo si beela dadka u sheegaan way shaqayn weydi baa dhacay Axmed Cismaan baa la weeraray soo jooga saxnaa dhalinyaradu baahanta ayaa la dabalguyey oo inta la qabartay Soomaaliya loo geeyey taleex baa la tegey oo deegaankii nagu wanaagsanaa xudun baa ciidan la keenay laascaanood baa ciidan la keenay
shaqaynaya oo ra'yigooda ay ka mid tahay inay yihiin somalilan dhulbahantana beero sheegaya dhulbahante garac maaha dhulbahante waa dhulbahante waa arki waa kabralax waa daaro ilaa kismaayo ilaa jigjiga ilaa iyo ceerigaabo ilaa iyo puntland intaasay joogaan marka waxaan leeyahay ilmada la qaldayo ilmaada reeraalo tolbaynahay ogaada wixii dhacay haddii ay khaatumo iyo kuwa hogaaminaya ee siyaasiyiinta iska dhigay ay waxqabanayaan kalshaale markuu dhacay meygaagle markuu dhacay xurufadhi markii lagu dagaalamayay buuqooda iyo xadamika markii lagu dagaalamayay xaggay jireen miduur bay joogeen maantana waxay doonayaan inay ku qaataan magacaasna khaatumo wax la yidhahdo dhulbahante aaminsan yahay ma jirto umana gacan qaadano waxaan leenahay aan dhamaystirnaad in badan baanu haadiya aan ka baqnaa ilmaadare u dhibaatay naga daaya oo ilmaadare u dhibaatay naga daaya dhibaatadii 5-6 bay maraysaa marka waxaa weeyaan warin baan siinayaa waxaan leeyahay haddii aad doon weydaan dhibaatada in cabdulxaanag waana la isbaranayaa oo ilaahay ga sareeya waa ku samirsiinaadeer ugu dambayntii cabdixiis cabdixaafid xiis xiiray camay haddii deegaankii SSC uu murankiisu soo noqnoqdo dhinac khaatumo maamul la yidhaahdo annagaa ka talinayna dhinac somalilan ay hadba mar kusoo ruuqaansanayso dhinacna puntland ay isha ka eegayso marna ay hore ugu soo dhaqaaqayso muxuu yahay masiirka deegaanka kan uu ku dambayn karaa ugu dambayn actually wuxuu ku dambaynayaa deegaanka Soomaaliya sanagahay waxaa la dagaalamay Ingiriis waa dadkii ugu horeeyay ee Afrikaana ee diyaarada lagu wararo wuxuu ku dambaynayaa inaanu istifaacno wuxuu ku dambaynayaa geela iyo baabuurta iyo naftaba inaan dhigno wuxuu ku dambaynayaa inaanu madaxdayada iyo odayaashayada adeecullaha wa adeecu rasuul uu amri minkum uu amriga inaan raacno garaadada dhabta ah ee wanaaga doonaya ee difaaca doonaya is-ilaalinta doonaya inaanu ku dayano tolkiyo daaroodna diyaar buu noo yahay ee dadbaa diidan dadka diidanna ma shaqaynayso maamulka puntland wuxuu diyaar u yahay inuu dalkaiyo dalkaba difaaco maxaad ku dari lahaa waxaan ku dari lahaa واعتصموا بحمل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا اسخرصلا بحمل الله حق إلهي جميعا كل جين ولا تفرقوا على كل تيرة والبهانت وامد حتى وامد كبروح وامد دارود وامد سومال لماذا هو الرادين إن دالكنا مكلا قوايو دالك لما تشوغيو والسيركي أحمد العثمان دولة بوتلان آدم سبط غرسراي آدم كسالي عبد حافظ حيس حيري عمي هذه أدبن كاقا مهد علينا مقع يقولون هو عبد الرحمن موسى هذه أدبن ما ستيرادك عليه داود اللي انت وحن كسو كوبينا ورئيسي قديران وليه لأنه عبد حافظ حيس حيري عمي وكسو كان دالك مريكا كأهنا وقويها السياسي وكسو تشيدا قبل لدى SSC تانيا انت مردن بديبقو كل مدونو برنامج كانوا كلا وحن يدوكو دافع الناس دا يو اسم قلدن بوحي سلام